meeyarkii hore ee Boorama imikana ku soo noqday mar labaad background-kayga iskuulkayga waxaan ku soo dhamaystay ilaa secondary ee Muqdisho General Daawud markii dambeena waxaan galay business then hobbigaygu wuxuu ahaa siyaasadda waxaan uga soo diga rogtay markaa inaan golaha deegaanka isku sharaxo 2012 xilligaas oo aan ahaa isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal iyo Selel sidaas aan ku soo galay siyaasadda hobbigaygana way ahayd runtii xilligaas la ii doortay meeyarnimo muddo 3 sano ku dhow baan hayay haddana waxaan ku soo noqday 2018 ilaa imikana insha Allah ilaa muddadu naga dhamaanayso hadii waa insha Allah waxaan isleeyahay halka ka sii fuul salaanka siyaasadeed macnaheedu marka Saleebaan haddaad background-kiisa doonayso oo si koobana waa ka waayahay bal waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda Boorame iyo horumarkeeda Boorame kullay horumarka Boorame aad buu u muuqdaayo waxa ku muujinaysa inuu horumar jiro dadka ku soo qulqulaya iyo markaan magaalada dhex marayso dariiqyadeeda iyo saxmadda ay tahay baa ku muujinaysa markaa inuu magaalada horumar ka socdo runtii population-kuna uu soo kordhaya factories-ka iyo ganacsiga faktarada ugu muhiimsan ee Keenayana waxay tahay waa degmadan oo ah degmo nabadeed oo inta badan aan dadka kala soocsoocin runtii marka horumarku waxa weeye laba nooc mid ay bulshada wado iyo mid ay dawladdu wado bal anaga daawadayaal badan oo ku daawanaya muddadii aad xilka haysay mar haddaad marka horena 3 sano haysay imikana ilaa 2018 ilaa yarda intayd ka dhamaanaysa aad haynayso bal mid iyo laba iyo saddex waxyaabihii ugu waaweynaad qabateen golaha deegaanka dadku hormuudka u tahay kullay waxyaabihii ugu waaweynaa aanu qabanay waxa kamid ah wadooyinka magaalada waxaanu golaha deegaanku u yimi magaalada Boorama hal wada leh oo meeyarkii naga horeeyay oo sameeyay maantana waxay maraysaa 17 jid oo laamiyo magaalada dhexdeeda iskaga gudba waxa kale oo sameeynay in laamiyadaasi haddana ay soo jiiteen gaadiidkii oo bajaajta timado wadooyinka horteed ma ilahayn basaska oo markaa iyaguna aad ugu yaraa ma jirin marka waxay xasuusisay markaa taas dadkii Boorama in la xasuusto how many years bay jirtay discussion dheer laga galay la xusay boqol guuradii Boorama dadku in badan bay ku murmeen boqol sano jirtay macnaheedu ma ahayn boqolkii ugu dambeeyay intii taariikhdii laga sheekeynayay intii laga xasuustay ayaanu nidhi boqolkan aynu ku dayno boqolaal hore xasuusan mayno haddii Boorama development-kan gaadhay boqolka sano soo socdana Boorama siday hiigsanaysaa taa bedelkeeda maayar waxa jira dad badan oo golihiina deegaanka haddana ku dhaleela inaydan wax badan qabanin intii aad joogteen taa maxaad ka leedahay meel dhaqdhaqaaq jiro oo shaqo socoto dhaliilo way imanaysaa golaha deegaankuna waa dad kala duwan oo nin walba dabeecad gaar ah leh in fiican oo is urursatayna waa laga helayaa in shakhsiyaad iska leexsan waa la helayaa laakiin goluhu wuxuu u markii hore isbarashay ahayd laakiin imika intii wanaagsanayd oo dhan majority almost way wanaaga isku raaceen waana la dabeecad bartay golihiina deegaanka ee Boorame inta badan waxa la yiraahdaa maayarka ma wada shaqeeyaan way khilaaf baa soo dhaxgala maayarkii golaha deegaanka taas ma jirtaa waa la oran karaa dadka aanu kala saarno dadka waxaan Facebook ku shaqeeya iyo dadkan caadiga dadka wala shaqeey marka haddaanay goluhu ila shaqeynayn waxa weeyaan bolisiga ku shaqeynayaaba ma hirgaleen imika 12 bishii 12aad bishii 11 2019 kalfadhigii ugu dambeeyay ee goluhu danaha degmada kaga talinayay ayaan qabanay more than 17 ayaan saxiyada TV-ga ka daawanaysa YouTube-keena hadda ku jiraan hal xildhibaan baa ayaa ka aamusay marka taas waxay ku tusaysaa inaan wada shaqeyn leenahay goluhuba wuxuu u sameeysan yahay inuu wada tashi ku meel gaadho siyaasadda oo soo saarana cid ay gudoomiyaha oo executive-ka u doorteen inay fuliso wadooyin badan oo sameeysan way jiraan haddana wadooyin badan oo imika sida tan bartamaha magaalada markaan soo mareynay aad bay u burbursan tahay meel oran karin taa qudheedu wax qabadkeedii ku jirto shaqooyinka dayacdeen bay ka mid tahay absolutely horta dayacaada ka reebtay laakiin qorshe waa noogu jirtaayo waaba noo bilaan garaysan tahay miisaaniyadan hadda ku sheegayo maanta loo laansixiyeena way ku jirtaa repairing-ka wadooyinkii hore sameeyay way wadadu sideedu ahaan mayso caalamkaaba ugu tala galay muddo inta la inay wadadu soo jirto
inaguna de hadda wadooyinkii bilaabaynaayo halhaleel aynu ku helnay marka balaakii noogu jirtaa wixii googo'ay inaan repairing ku sameeyno hadii la helo magaalada bajaaj badan baa ka shaqeysa ku dhawaad 4,000 bajaaj baa lagu qiyaasaa inay magaalada joogaan waxaad ka qaadaan cashuur wada marisa oo dawladda hoose u gaara halkaad geysaan lacagtaasi bajaajta ka qaadaan lacagta cashuurta ka qaadnay ayaan ugu talagalay inaan dadka ku celino bajaajta laftigeeda inaad wareysatay ayaan jeclaa waan aragnay dhowr qof waxay ka cawdeen sanad walba lagu kordhiyo bilo walba lagu kordhiyo cashuurta waa kuwa bajaajta lamarka ka furay habeenkii waxyaabaha khaldan kaga shaqeeya laakiin bajaajtu majority guddi bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin lacag bay iska ururiyaan lacagta waxna wadooyinka aad maraysiin ku repair gareeya gudoomiyaha bajaajta hadda doonto waad wareysan kartaa waxaan anaguna waxaan ugu darnaa waan u ururinaa waan u habaynaa kadibna iyaga dib aan ugu celinaa iyaga marka wadooyinka marka team bay leeyihiin farsamada ah oon kaga shaqeynaa marka lacagtaad bajaajta ka gurtaan baad calaashan ku samaysan wadooyinka iyo de cashuura kaleba macnaha cashuurta aan qaadno guud ahaan markaan ka hadlo waa waxyaabaha bulshada wax ugu qabanayno haddii caafimaad tahay oo de MCJadii iyo shaqaalahooda mushaarkan bixinaa haday iskuulada dugsiyada hoose ay tahay oo waashmaanadii cleanerskii wixii oo dhan mushaarkan bixinaa waxa soo dhami waa waxyaabaha aanu ugu talagalay cashuurtan dadka inaanu ku celino madaarkii Boorame dhawaan waxa sheegtay in la furayo haddana wali lama furan halku marayso lama furno runtii shaqa ka socota waan shaqa ka socota marka waxaan ugu talagalnay oo balaankayagu yahay hadii xagaagii hore dib nooga dhacay in hadda samarkan haduu ilaahay raahdo oo la koosado insha Allah on bilowno hore warbaahinta waxaad ugu sheegtay in la furayo sanadkii imika dhamaaday 2019 dhowr jeer warbaahinta ka hadashay waxa madaarkii wala dhameeyay dhaqaale badan baa ku baxay qurba joogta gobolkan u dhalatay dhalinyaro badan iyo dawladda kale oo adigu waliba maayir hormuud u tahay inaad ku bixisaan dhaqaale badan wali haddana ma dhawa waa runtaayo qurba joogna waa jeclaan anaguna waa sheegnay meediana waa laga hadlay dhaqaale badanna sida sheegayso ku baxay laakiin haddana waxaan dhaafi karin talaabada ilaahay halkay noqotay ayaana dhaafin kari weynay waan si rajaynaynaa haduu ilaahay raado in this year ina furno insha Allah dad badan waxay sheegaan in dawladda dhexe ay hor taagan tahay maareeyaha duulistii hawada Rodol oo la ogoleyn inuu furmo madaarka Boorame si uu kii caasimad u shaqeeyo taas wax ma ka jiraan mise waa dhaliilaha dadku idin soo jeedinaya xasha lillaah waxaas ma jiraan waxa weeyaan xukuumaddu iyada ka mas'uulaas dawladda dhexe dadka inay madaarka laftigiisu anagu waxay hay'adoon waan caawinaynay waxa weeyaan hay'adaas ka mas'uula oo maamusha waxa weeyaan hadii wixii market balaw yahay oo soconayo deersno hor istaagan marka wax hor istaag la ama xukuumaddiidani ma jirtay waa dadka siyaasadaha xanafta u yeelaya dhanka dhulka hadaynu soo noqono muranka dhulku uu soo noqnoqdaa in badan mararka qaar rabshadu yimaada dad baa ku dhinta dawladaha hoose magaalo kasta waxa lagu dhaleelaa inay iyagu qayb ka yihiin murankan dhulka ay dadkan isku qabsanayaan ka maayar ahaan ka golo deegaan ahaan sidaad uga hortagta waxaan uga hortagnaa waa runooda in la nagu dhaleela waa waajibo waxa weeyaan markay dad magla kala qaadan xataa dil ka dhaco de biliiska la eedeeya ama odayada dhaxgalay baa la eedeeya ama kiiska kolba cid gacanta ku haysa shaqadeeda tay baa lagu eedeeya siday doonaan oo approach karayaan marka dhulkii kol haduu yahay waxaan anagu mas'uuliyadeeda ay tahay qaabkaan u xukunay de qaarna ku farxayaan qaarna way ka xumaanayaan marka waxa weey sidaan u approach garina waxa weeyaan sharci baan ku karsaarnaa dadku in kastoo ay imika ku talax tageen waxa la isku dilayaana waxay sharciga u lahaayeen ma waa hantidii danta guud ay isku dilayaan dadku ninna waxa uu leeyahay lagu doonan maayo in nadaafada magaalada marka dhex marto meelaha qaar ba aad u liidata dadka marka la sheekaysto waxay koranayaan shirkado gaar ah gacanta loo galiyay oo ay dawladda hoose siisay marka shirkadaha qudhooduna noomaba yimaadaan lacagna way naga qaadaan maxaa ka jirata way sheegan karaan dadku sida ay doonayaan exactly looguma wada adeegi karo waana dareemayaa shirkadaha laftigooda aan ku canaanaynin wax way gaab badan baa jira runtii capacity-ga qashinka magaalada ka soo baxa iyo qalabka ay shirkaduhu haystaan baa kala badan laakiin way dadaalayaan anaguna inta dabadaanu kaga jirnaa waxaan se halkan fariinta u marinaya inta aanay gaadhin inay gaadhaan dadkana waxaan leenahay waqtiga loogu talagalay in qashinka halkiisa la soo dhiga si gaadhigu ugu beego laakiin haddaad gaadhigii oo meeshii maray aad dabadeed soo dhigto macnaheedu waxa weeyaan dee lama qaadin qashinka bay ka dhigan laakiin soo idinka shaqadiini maaha inaad shirkada intaydan gacanta u gelin baynaad idinku wixii la idin doorto soo maahay nadaafada magaalada inaan shirkada gacanta u gelino oon shirkada yar in baawar gareynaaba la noo doorto oon dadka soo in baawar gareyno instead anaguna waxaan gacanta ku hayn lahayn
systemkan maamul daadejinta ayaan ugu talagalnay maadaama halkan uu ka hana qaaday travel BB-gu public private and partnership inaan qashikana saa ka dhigno mustaqbalka dhow waxaan doonaynaa ilaa cashuuruhu inay private noqdaan haddii Ilaahay dhaahdo laakiin waxaan doonaynaa accessibility-ga cida loo dhiibayo inaan marka hore qiimeeyno competition la galo oo aanu aad u qiimeeyno saylada xoolaha ee magaalada Boorame dad badan baa ku ganacsada cashuur bay bixiyaan dadkaasi waxay yiraahdeen cashuurtii aanu bixinayna dawladda hoose laguma soo celiso waxay ka cabanayaan baahiyo asaasiga ah sida biyihii harkii ay yiraahdeen annaga iyo xoolii toona ma haysano meel aan harsano suuliye ma lihin taa maxaad xog qaban weyday ilaahay bay been u sheeg hadda cid aad aragtay ma aha hilblayaal baan u maleynayaa wadada uu hilbayaasha kullidi ah waxa weeye halkii ugu dambeysay ee ay naga dalbadeen waxay ahayd xoolo yar yar iska dhaaf iyaga iska dhaaf geela ma haduu u baahan xaridii geela noo sameeyay yiraahdeen waanu sameeynay waana warsan kartaa sirmida oo tii kartaa fancy baanu sameeynay deyr markii hore silig bay lahayd deyr baan u xidhnay 120 ka badan 120 kun ay naga baxday hore waxaad soo noqotay maayarkii Boorame 2012 golii deegaanka la doortay waad maayar ka noqotay muddo badan aad xilka haysay haddana waa laga qaaday waxa lagugu eedeeyay in xagga ammaanka oo kala jabhad markaa samaysantay inaad dhinac aad saartay saasay kaaga qaadeen maxaa arintaas ka jir eedaha waqtiga lagu soo jeediyay waxaas waa uun iska waxyaabaha iska calaamadaha waxa weeyaan qofka xilliga Ilaahay ugu tala galay buu kursiga ku fadhiyaa inta bariiskiisu ka maqan yahay kursiga uu ka maqnaanaya marka Ilaahay ugu tala galay inuu bariiskiisa ka bislaaday haddana ku soo noqonaya waxaan kale iyo jabhad iyo wabar iyo waa ruwaayadaha oo dadka wayna sheekayaan marka waxa weeyaan sheeka abuuraan kol hadaan sheeka hayn wayna abuuraan ama run ha noqoto ama been laakiin waxa weeyaan xilliga Ilaahay kuugu tala galay baad ka tagi xilliga Ilaahay kuugu tala galayna waad ku soo noqon hadii marka la iga maarmi waayo golaha yiraahdaan war adiga bergida aniga la doonay hadda waa diido waxaan ku yiri kuwada iga aqoon badan way jireen golaha deegaanka ku jireen runtii waad gartoo ma waxaan nidii idinku bal kursiga maanta marka waxay war kulli adiga meesha marka hore mushkiladeeda soo bartay imikana aadan ku dooranay inaad meesha ku noqoto oo halkay wax taagnaayeen adiga noogu xogaarsantii intaan barasho iyo horumar isku deeri lahayn adigu hore soo baratay dadkood weynaatay wax qabad halka ka sii bilow kobaca siyaasadeed bay keenaysaa oo wax badan oo runtii challenge badan oo aan ka soo gudbay hadda waxaan islaahay inay imika si yaro dhibyaraan laga gudbi karayo mar hadda tiri arrinka waxba kama jiraan adiga kama yarahan maxaad isleedahay waqtiga xilkaaga wad ku weeyday hadda qadarka baan ku sheegay qadar meel loo dhaafaa ma jiraa sababuhu bay noqonaysaa tan kale wad garsooma oo suldaanka ayaa ahaa qabiilkayga markaan ku balbaaray sidii in caadiga ayada kugu waramo suldaanka ahaa suldaankii reerka anu aan ka soo jeedo marka waxa halkan resource-kii baa yaro waa la kala jiidanaya kuwan wax kala jiidanayna uu baa yiri suldaanka oo ilma adeere aniga qoorta ka soo goynayay aniga igu yar fadhiisiya markuu la dhacayna waanaga markii dambe soo gurmanay la igu yiri war soo noqo saasayad baasho golayaasha deegaanka Soomaaliland guud ahaanba waqtigooda u dhamaaday welina lama sameeyay wax muddo kordhina oo anagu haddaan media hayna may soo gaarin ma la oran karaa sharci darrad ku fadhidaan anagu kursiga horta ciidamo nacdo golaha deegaanku sharci darro kuma fadhiyo laakiin waxaan oran karnaa muddadii 5 sano ahayd way dhamaatay golaha goluun baa bedela golaha deegaanka goluun baa bedela malaha dadku waxay filayaan oo dadku ay tahay in loo jilciyo baarlamaanka waa la kordhiyaa guurtada waa la kordhiyaa waay golaha deegaanka loo kordhin waay golihii anaga naga horeeyay 10 years buu fadhiyay golaha yagii baa bedelay marka golaha deegaanka golaha baa bedela marka sharci darro kuma fadhiyaan la xajaclo badan way jirtaa waxa la warinteena kuwa xanaftii qaba oo ilkii la soo dhashay la dooran lahaa kuwan hore ilkii ka dhamaadeen ee maanta wax qabad u jeeda aynu ku sii hayno iyadna waa arrin xalad oo dawladda laftigeedu iyo golayaasha baarlamaanka iyo guurtuduba xal u arkeen laakiin idinku marka deegaanka soo sharaxaysa waa da'yaraydan sida kuwan imika kale ممكن بعد قرأت ستين بس أو كورسات هو قرأت هذا سنة كسوق هو قرأت صح كوي بكرني أنا بميديا كشيء برجع هروان يرين هذا لكن أنا قلبت يا أدي وين هذا برجع ورا أنا ير أيام كورس قيمة لكن ما أنت أنا وين هرمر وجهه أيام مي لوين هالكان سفر كوي مدح من كوي سمال الله مدن السيلعي وحيدي صوت شديد لليلا إن كلها ديجان كي ما يركو مشروعي GBL gobolada oo dhan ka shaqeynaya horumarinta magaalooyinka aanay sidii lagu tala galay aanay Booramo uga soconin taa maxaad ka leedahay malaha waa warka hore kaas waa war hore ayaan isleeyahay madaxweyne ku xigeenku gobolada Soomaaliland dhan buu soo maray degmooyinka mashaariic GBLG oo ka socdaan oo dhan buu soo maray
mid walbana wixii ay dhaliil ku lahayd uu sheegay hadda lama oran karo de madaxweynuhu muxuu u dhaliilay meesha dhaliishu jirto inuu sheego waa sababta uu maray si aan sanadka dambe u kabnade marka taa waaba ku amaanayno waxas lahayn dhaliilaha noocaasi waxa weeyaan waa kuwa toosinaya maaha kuwii golaha hadday golaha tahay waa naga tagmaan wax kale uu rabaa laakiin waa tii kul hadii de dalka madaxweynuhu nooga sareeyo isaguna ay hoos imanayaan mashaariicda jibiljiga xafiiska champion-ku waxa weeyaan degmo kasta dhaliishii ay lahayd buu dhaliilay wixii ay ku xooganayna wuu sheegay hadda imaad weydiin waxaan ku xooganayna madaxweyne ku-xigeenku aw sheegay su'aasha aad baad u mahadsan tahay maadaama daayar tahay golihii deegaankan aad ka soo bilowday hankaaga siyaasadeed ma golaha deegaanka kaliya ku eegaanaya talow mise markaad bartanka tagto waxa laga yaabaa inaad hanka siyaasadeed kala leedahay wallahi waa su'aasha aan ugu jeclahay in la weydiiyo markasta relief aan ka helaa because of hobbigayga siyaasadda ah inta ilaahay uu gaarsiiyo ee halka dalka ugu sarreysa ah waxaan doonayaa inaan gaaro laakiin si garaaji waliya inaan salaanka u fuulo sometimes baa rag badan oo waxaan oga dhexda intay ka boodan jiray joorooyin badan dhabarka ka jabo oo hadda meel ku maqayaan la garan marka waxaan doonayaa si garaaji waliya inaan kursiga u socdo hadda mayor een isku duwad wasaaradda baa noqday mayor baa noqday mar labaad baa haddana ku soo noqday waa final waa markii hore master baa ahayd degree baa ahayd master baan qaatay sidaasaan sii soconayaa ilaa kuwa kale de haddaan iminka qaar sheego dad bay yar taaban doontaa ilaa kuwa kale iyaan doonayaa halka ku sarreysa inaan gaaro insha Allah mustaqbalka aad baad u mahadsantahay Maayer adaa mudan